ويكون ماتسين بوتلاند سدا يعني أرحم درهذا له وحشني ماذا يقول لا يان دتك كيمت قبل هذا باي بقول يجدو يجبوينك يا شبلا هوسه لكن وحن ربعنا نشيغو ومدو ما كلا مارنتو إن الصوماليين وحن ربعنا عندنا وحبو شيغو باقي أنو جيديو وحكاية مدو الصوماليات لانت بدلان أي بلاودي وقتي ما أنت ما يسن بلاوين وقت هو أي بلاودي لكن وحن ربعنا الصوماليين نشيغو صوماليين ما إذا لا سحسن تاهي إن روح قرب رنطاء عكستاء مساكينة ميلا النول لغا رادي النول كرادي dadka walaalehen reer Puntland gudahoodii ku nool inay saas u dhaqmaan lacag iyo magac ay ku raadiyaan dad la laayo laguna been abuurto waxaan ayaga aysan ahayn suuqa intii yani lagu soo daad gureeyo la yiraahdo waa al-shabaab dhiigooda lagu banaysto arintaas ayada ah ma wax garadka Soomaaliyeed raali bay ka yihiin culimada diinka ma raali bay ka yihiin haddaba waxaan rabaa inaan idin sheego Puntland way degan yihiin koonfurta Soomaaliya dad ka soo jeeday guriyay ku leeyihiin hanti mi guurtay ku leeyihiin kolba kuwan waa dad iska garab rarata oo yaani muxuu ahaa iska xamaasho meesha sayida intii dagaalada sokeeye yani goboladaas ka jiray meeshaas aaday bay ahaayeen waxaan filayaa hanti mi guurtinaysan meeshaas ka olin dadka digili marifle waxaan rabaa inaan u sheego digili mariflaha meesha nolosha ka raadiyay 18 bishii May ruuxii meesha ku haro wax allaale waxa doontaan ku sameeyo anakana go'aan baan gaarnay haddaan nahay qowmiyadda digili iyo marifle ka soo jeed gobolada koonfureed 18 ka hor haddii Soomaali weyn aysan arrintan ka hadlin oo Ban Ki-moon uusan soo faragelin qaramada midoobay Amnesty International aysan soo faragelin Human Rights Watch aysan soo faragelin dawlad ku sheegay Xasan Sheekh Maxamuud aysan faragelin oo yaani muxuu ahaa dadkaas reer Puntland umad fayow oo caaqil ah ahlu diin aysan ka soo bixin oo baydhabo aysan iska xaadirin xisaabtan aysan u soo diyaar garoobin go'aanka aan gaarnay baan fushineynaa hadduu Ilaahay meesha laga gaaro aniga yani muxuu ahaa afka waxaan ku hadlayaa Soomaaliyeed inta samaha jecel gaar ahaan digil iyo marifle kadib markii aan wada xiriirnay odayaasha dhaqanka uu gadoomi u yahay malaaqdeerow ninka la yiraahdo ee baydhabo joogo waxaan go'aansanay wixii aan go'aansanay baan go'aansanay kamana hordhici doono dadka ku nool digili mariflaha ee Puntland joogo waxaa loo leenayaa afka maayga ku hadlaan Soomaalidu waa maay maxatri wayna ku hadli doonaan mana joojin doonaan meel alla meeshay doonaan ay ugu hadlayaan ma garatay af Soomaaliga ama af maxatriga ma ahan Qur'aan Kariim ah ma ahan xadiis nabi waa waxaan hadda aniga ku hadlayo dadkaas afka maayga waa lahjadoodii waaye wayna ku hadlayaan waa af Soomaali waana la qori meesha ay ka dagaalamayso Puntland waxay tahay afka maayga yaan idaacadaha looga hadlinayaan la qorin laakiin insha Allah taala waxaan rabaa inaan u sheego in iskoolaadka ku yaala Puntland in laga dhigo ayaan tusayna hadduu Ilaahay af maayga in laga dhigo oo ay bartaan waxaan rabaa inaan baaq u diro baarlamaanka ka soo jeeda digili marifle ee magaca digili marifle ku joogo xamar waa inay degdeg ay u tagaan haddii ay wakiil u yihiin digili marifle waa inay baydhabo tagaan 18 bisha intaan la gaarin ay soo socoto May waa inay baydhabo isugu tagaan waxaa kaloo rabaa inaan baaq u diro dadka digili marifle haddii waxaan ku hadlayno ama luqadda ama haddii baaqeeni meel alla meeshii joogaan uu gaaro
haddaysan 18 ka hor aysan ka soo tagin Puntland wixii meeshaas ku qabsado ayaga ayay mas'uul u tahay ayagay gaar u tahay hanti waxba ha soo qaadan waxa joogo goboladan koonfurta Soomaaliya ku nool oo digil milif dhaxdiisa ku nool dad hanti ma guurta leh ka soo jeeda Puntland hadday beer asendooyin noqon lahaayeen hadday noqon lahaayeen guryo hadday noqon lahaayeen yani waro hadday noqon lahaayeen muxuu ahaa dhul daaq ah hadday noqon lahayd beero oo yani muxuu ahaa wax walba ka baxo dhammaan way leeyihiin hadday noqon lahayd xoolo nool intaba u joogaan xoolahaas la idin qiimeynaya idinka iska leh waa halaashiin sababtoo naftiini baad ku weydeen ummad baa yani muxuu ahaa kalarka Soomaaliyeed leh midib Soomaaliyeed leh ayaad ku qaldoonteen inaad ku dhaxmalataan Puntland waxay heshiis la gashay Oromo lagana keenay Ethiopia oo yani muxuu ahaa kulligood yani afka Soomaaliga ku hadlo jawaasiis ah يعني دت نول إن ما أنت تقدرش الغرة هذه شباب بنوي من اللي هذا إما سا معلمين بلا توكتي إما سا هنتيض إلى نعي إما سا يعني محوها إن محوها ناقب بدن إما سا ناقب بأساي الله صاري إما سا عرور بالوجبي يعني محوها بوششك يعني هم قاعدين بوله إلهي إما سا عرور بالوجبي أنا أنت أسيجا أنا بقول الله المجاعة أو magaca Soomaaliyeed nimanka hoteelka lagala baxay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.